dabcan sidaan hore idinku sheegay ingiriisku wadanka kaliya duulaan kumuusan hayn dal iyo dad iyo diin wax walba oo magaranaysa sifada iyo astaanta dal ku leeyahay wuxuu doonayay inuu isagu bedelo oo markaa ummadana uu adoonsado wadankana uu bilaqaysto taana waxaa daliil u ah hantida amba aasaarta qadiimka kaliya dhulka kama dhoofin jirin maxamiyadda ingiriiska sidoo kale markuu isla heshiis beena la galay dadkii xeebaha ku taxnaa isla iyagii uu xeebaha ka daadguriyey isagoo markaa geynaya wadankiisa ingiriiska si markaa uu u geeyo xadiiqooyinka xayawaanka isagoo doonaya inuu yurubiyaanka kale ka dhaadhiciyo dadkuna inay yihiin dad inferior oo nasabiyad ahaan ka hooseeya nasabiyadda caddaanka amba dadka diirka cad leh dadkan markaa waqooyiga laga qaaday gobollada waqooyi qayb baa ku dhintay oo markaa cudurro ka qaaday ayna hore u arag oo kale oo duriga u badnaayeen kuwaasoo magaranaysa la qabsan waayey cimilada iyo cuntada deegaanka oo markaa ku dhintay oo rag iyo dumar iskugu jira oo markaa aan dib uga soo noqon sidoo kale waxaa jiray isla muddo dhexdaas ingiriisku dad uu ka qaaday oo markaa sidoo kale ka dagaalamay gobolladii sida wadanka burmo oo kale uga dagaalamay markaa inkastay u badnaayeen dadka xeebaha dega xeebaha gobollada waqooyi haddaan kusoo noqdo mawduucan oo ah markaa dadkii laga qaaday qarnigii 18aad dhammaadkiisii gobollada waqooyi iyadoo markaa la geeyey ingiriiska iyadoo laleeyahay waxay ka qaybgelayaan bandhig hidde iyo dhaqana xeeladuna ay ahayd in xaqiiqadu ay ahayd in la dhexgeeyo xadiiqooyinka xayawaanka oo loogu magacdaray human zoo oo marka xadiiqooyinka bini aadanka dabcan wargeysku marka wuxuu sheegayaa amba xilligu soo baxay waxaa weeye 1895 may bishii shanaad 25keedii waxa weeye wargeyska waxa soo saaray illustrated sporting and dramatic news marka waxyaaba cunsurinimada leh la yaab kale marka wargeyskan ku jira waxaa kamid ah gabadhan yar ee Soomaaliyeedda marka qaabka timaheeda uu wargeysku u samariyo inay leedahay timo juruura oo kale oo marka astaan dadka madowga sidoo kale waxaa kamid ah cagacadaantan oo marka dadka madowga laga gaday Yurubiyaanku inay ahaayeen dadka madowga dad daanyeera dabcan dadka cadaanka si u labisan yihiin waad arkaysaan naagta iyo ninka cadaanka si khatar oo high class oo kale ayay u labisan yihiin xaggan waxaa lagu qoray marka daaqada ciwaanka geeskiisa shifarin Soomaali Soomaaliyad yar oo markaa gariiraysa oo markaa dhaqarqayoonaysa oo ninka cadaanka waxa la iskaga dhigayaa inuu isagu markaa huusiinayo iyagoo markii horeba iyagu halkaa geeyey hulaanta baday ingiriiska intay wadankoodii ka qaadeen gobollada waqooyiga Soomaaliya ee markaa loo yaqaanay British Somaliland Protectorate inta laga qaaday halkaa geeyeen markaa ay ka dhigayaan inay wax tarayaan laakiin xaqiiqadu waxay ahayd in iyagu ummadda bahdilaan oo markaa ay gumeystaan ummadda Soomaaliyeed oo isirka Soomaalida wata halkanna waxay ku dhigeen Soomaalida markaa geel bacsanaysa oo markaa iyagu calaashan riwaayad oo ka maadeysanaya isirka Soomaaliyeed markaa oo markaa leh dadka magaranaysa dadkan waa dad iska cawaana xaggan kale waxa weeye dad Soomaaliyeed oo markaa waxay wataan bay ku leeyihiin exotic animals oo markaa xayawaanka jungle-ka laga soo qaato ay maroodiyaashu iyo kamid yihiin goroyada iyo wixii la halmaalay sidoo kale xoolo dhaqatana ay ahaayeen way leeyihiin inkastoo xoolo dhaqatadu ay runtahay haddana laakiinse in dad xoolo dhaqata ay maroodiyaal iyo goroyo wata aan magaranaysaay mid la arag ayna ahayn sidoo kale halkan waad aragtaan magaranaysaa ciyaalka yar siduu magaranaysaay sawirka timaha uga xumeynaya maaragta inay timo jureeri leeyihiin timo yaroo jureera halkanna waxyaabaha dadka cadaanka ay jecel yihiin waxaa kamid ah marka dadka cadaanka ay jecel yihiin waxa weeye waxyaabaha fantasyga oo markaa mala awaalka iyo riwaayadaha mala awaalka marka maadaama fantasy iyo fiction ay dadka white people ay jecel yihiin dadka cadaanka ay waxay ka soo dhigeen dadka Soomaaliyeed marka ay gobollada waqooyi inay leeyihiin horse oo ma garanaysaay faras dameer farow inay haystaan oo marka ay kaymaha ku jaasaan oo marka iyagoo marka jaasaya dameer farowga la jaasaya yaraalada dameer farowga la jaasaya ayay soo bandhigeen halkan kalena cunsurinimada ka qabaan waxay dadkii cadaanka ah sida dadkii Soomaalida ahaa markaa waqooyiga sida daanyeerta u jaasaya oo markaa cagacad oo cawaan duurjooga oo markaa bay ku soo bandhigeen xaafadda marka lagu soo bandhigay waxa weeye Crystal Palace dabcan anigu markaan London joogay waan tagay xaafadda Crystal Palace
ku taala haddana khaldanayn galbeedka igana leeda koonfur galbeedka magaalada London. marka waxay leeyihiin Soomaalidii aadii Crystal Palace ee joogtay Crystal Palace. marka waxay u dhiseen xero yaro xayawaanka oo kale ay waxaan kusoo bandhigayaan. marka waxaan waxa weeye wargeyskii marka ay soo saareen cadaanku iyagoo ma garanaysaa sida ummadii ay gobolada waqooyi ka kaxaysteen sida ugu bahdilaya. waan ayaan daro in caruurta loogu sheekeeya ingiriisnimo gumaysan ilaa xaqiiqadu ay ahayd in heerka ilaa iyo adoonsiga xaalku gaadhay oo ma garanaysaa waxa loogu yeedho adoonsigii dahsoona ma garanaysaa. marka ciwaanka iyo title-ku wargeysku waa kan. sidoo kale waxyaabaha la yaab kale runtii murugada waxaa ka mid ah in warqadan ay ahayd warqad lagu xayeysiinayo xadiiqada ay ku jiraan dadkii markaa laga keenay waqooyiga Soomaaliya oo markaa lagu xayeysiinayo laleeyahay waxa weeye waa happy family oo Soomaaliyeed oo markaa beerta dhex jooga oo markaa ma garanaysaa oo furan ilaa iyo ma garanaysaa 12 ilaa iyo dusk oo markaa ma garanaysaa leedin aqbalayo hadda timaadaan tigidhadana goosataan iyadoo ma garanaysaa halkan ma garanaysaa ay leeyihiin waa family Soomaaliyeed. dabcan iyagoo markaa ka imaanaya ka metelaya ma garanaysaa dadkan inay yihiin dad duur jooga oo cawaana oo ma garanaysaa ay bahdil tahay. dabcan halkan waxa weeye waa sawirkii pictureski ma garanaysaa native-kii Somaliland laga keenay. marka waxyaabahan runtii waxyaabo aad u muruga leh moogtahay oo ay Ingiriisku kula kaceen ummadda Soomaaliyeed. intaa kaliya ma ahayna waxaa sidoo kale ay sawirayaan dadkii markay Ingiriiska geeyeen waxay u sawirayaan sidii daanyeerka oo kale oo markaa waxay ku darayaan foolxumo dheeraada sawirka caadiga ah iyagoo ka dhigaya dadkanu inayna dad bili-aadan dhammaystiran ayna ahayn ay yihiin dad daanyeera ah oo markaa u qalma in la adoonsado oo la gumaysto. oo maadaama ay dadka diirka madow ka mid yihiin dadkan waxa ay mudan yihiin in markaa dadka cadaanka ay adoonsadaan oo ay guumaystaan wadamadooda. intaa kaliya kagama hadhin sidoo kale waxay saameysay gumaysigu diintii oo markaa carruur yaraa markaa waxaa laga dhigayaa Christian iyadoo ma garanaysaa waalidkood marka hore la gaalaysiinayo hadhowtana carruurtay dhalaan la dhahayo waa first born Christian Somali oo markaa maxamiyadii missionkii Somaliland berbera iyagoo markaa ugu gaban jiray dadka sidoo kale inay quudiyaan oo quudka kaniisadda usoo dhexmarin jirin. dadkuna ayna isweydiin ma garanaysaa quudka haddiiba la quudinayo maxaa kaniisadda loosoo dhexmarinaya maa dhirta hoosteeda iyo guryaha caadiga lagu quudiyo taasoo ay xeelad uga jeedeen. casrigan aynu joognana dadka Soomaalida ah si kulligoodba oo wada guud waxaa loo soo mariyaa ma garanaysaa waxbarashada waxaa loo soo dhexmariyaa kaniisadaha waliba sida mar walba ka dhacda gobolada waqooyi ee Soomaaliya inkastoo Soomaaliya si guudba ay uga dhacdo. sidoo kale taa kaliya maaha waxaad moodaa gaaladii waxaa soo dhiba sameeyey in dhaxalkoodii weli gobolada waqooyi ay lagu sii joogteenayo oo markaa iyagoo kaniisadahoodii loo deynayo sidoo kale la xusayo dadkii adoonsiga ka dambeeyey gobolada waqooyi oo markaa aad moodays in mar walba sanad walba lagu xusayo baroordinqa loo sameynayo taalooyinkoodii iyo sidoo kale meelihii cemetery-gii amba qabuurihii gaalada oo markaa iyagoo mar walba Hargeysa lagu booqanayo. waxaa iyaduna ma garanaysaa ayaan daraa dadka intaa kaga maysi tagin diin iyo dhaqan sidoo kale dadkii ilaa dumarkii ayaa la doonayaa in dhulkii dhakada lagu qaado oo markaa ay tanu ka mid tahay magaalo xeebeedka Bulxaar oo markaa gobolada waqooyi. marka Ingiriisku si walba ma garanaysaa dadka wuxuu doonayay inuu u aafeeyo isagoo doonaya dadka inuu damiir ahaan u dilo oo markaa si uu uga dhigo kuwa ma garanaysaa adoon u ah. dabcan sawirkan oo kale waxaa laga qaadaya iyagiyo markaa feerqaawan magaalada Berbera si markaa uu dadka uga gado in isagu yahay superior oo markaa dhaqankiisu ka sareeyo dhaqanka dadka Soomaaliyeed markaa oo isagu ka dhaqan wanaagsan yahay. waxaa intaa kaliya ma gumaysto intuu dadka qaado oo markaa London geeyo oo xadiiqooyinka xayawaanka dhex taago oo bahdilo intaa kaliya kumuusan eekayne sidoo kale gobolada waqooyi laftirkooda markuu joogay dadka wuu raran jiray isagoo markaa sawiro ka qaadanayay si markaa uu ma garanaysaa dadka cadaanka ee kale ay ugu qancaan inay dadka ka sareeyaan. sidoo kale magaalooyinka dabcan gobolada waqooyi oo dhan markaa dabcan sawiro ayuu kasii qaatay isagoo dadka tusaya inuu raranayo dad ummad Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaamo leh si uu markaa uga dhaadhiciyo dadka cadaanka ee Ingiriiska jooga inay ma garanaysaa iyagu ka sareeyaan dadka kale. sidoo kale dabcan isla waqooyiga waxaad arkaysaa saraakiishii oo markaa iyagu si kibir leh u fadhiya dadkii kalena ay ku xamaalanayaan isagoo sawirka la gadayo uu yahay in ay dadkanu inferior yihiin
dadka caddaankaana ay yihiin dad ka sarreeya kana ilbaxsan dadka kale ee markaa afrikada ku nool oo markaa lagu darayo waqooyiga soomaaliya